Salaamullaahi calaykum dhammaan walaalaheena qiimaha badan. Kusoo dhawaada muuqaalkan waxaad ku daawan doontiin 10 ciyaaryahan kuwaas oo kasoo muuqan doona World Cup-koodii ugu dambeeyay, kaasi oo ku qabsoomi doona waddanka Qatar 2022. Haddii aynu ku bilowno kaalinta tobanaad waxaa soo galayo ninka loo yaqaano Karim Benzema. wiilka waa ciyaara kooxda loo garan ogyahay boqorada Yurub ee Real Madrid iyo xulka Faransa ahna ku guuleysta Ballon d'Or 2022 ayaa ciyaari doona World Cup-kiisii ugu dambeeyay, kaasi oo ka qabsoomi doona waddanka Qatar maadaama ay da'diisu kor u dhaaftay 34 sano. shaki la'aan wuxuu ka fadhiisan doonaa xirfadiisa kubadda cagta kahor World Cup-ka 2026. kaalinta sagaalaad waxaa soo galaya wiilka loo yaqaano Angel Di Maria. Di Maria waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfadda badnaa ee soo mara kubadda cagta, waxaana sumcadiisa kor u sii qaaday goolkii uu dhaliyay finalkii Copa America waddankiisa, taasi oo gacanta u gelisay xulka Argentina. Copa America Argentina ayaa ku guuldareysatay finalkii koobka adduunka ee 2014, waxaana loo aaneeyay maqnaashihii Angel Di Maria oo xilligaasi ku seegay dhaawac. haatan inkasta uu yahay mid dhaawaca, laakiin waxaa loo badanayaa inuu kusoo muuqan doono World Cup-kiisii ugu dambeeyay maadaama da'diisu kor ay u dhaaftay 34 sano. kaalinta sideedaad waxaa soo galaya wiilka loo yaqaano Manuel Neuer. shaki la'aan waa mid ka mid ah goolahayaashii ugu wanaagsanaa ee soo mara kubadda cagta. Manuel ayaa ku mutaystay abaalmarinta goolahayaha ugu wanaagsan waxqabadkiisii World Cup-kii 2014 oo ay ku guuleysteen xulkiisa Germany. Neuer ayaa ciyaari doona shaki la'aan World Cup-kiisii ugu dambeeyay maadaama da'diisu ay gaadhay 36 sano. kaalinta toddobaad waxaa soo galaya wiilka reer Croatia ee Luka Modric. saaxirka qadka dhexe ee Croatia iyo Real Madrid, inkasta oo uu ku hogaamiyay finalkii koobka adduunka ee ka qabsoomay Russia, haddana waxay ku guuldareysteen wiilasha Croatia hanashada finalkii 2018, kaasi oo ay wajaheen dhigooda France. si kastaba Luka Modric waa kan ugu muhiimsan xulkiisa, laakiin shaki la'aan wuxuu ciyaari doonaa koob adduunkiisii ugu dambeeyay, taasi oo ay macnaheedu tahay da'diisu inay gaadhay 37 sano. kaalinta lixaad waxaa soo galaya wiilka loo yaqaano Luis Suarez. waa mid ka mid ah goolayaasha ugu wanaagsan kubadda cagta, kaasi oo soo matalay kooxo kala duwan oo ka ciyaaro Yurub sida Liverpool, Barca iyo kuwo kale. waana goolayaha ugu sarreeya xulka Uruguay, isagoo dhaliyay 56 gool 134 kulan oo uu ciyaaray. haatan da'diisu waa 35 sano, wuxuuna ciyaari doonaa koob adduunkiisii ugu dambeeyay. kaalinta shanaad waxaa soo galaya ciyaaryahanka loo yaqaano Edinson Cavani. Edinson ayaa xiran doona maaliyadda Uruguay koob adduunkiisii ugu dambeeyay, kaasi oo ka dhici doona Qatar 2022 maadaama uu jirsaday 35 sano. waayihiisa ciyaareed xulka Uruguay wuxuu u dhaliyay in ka badan 56 gool 129 kulan oo uu saftay. kaalinta afraad waxaa soo galaya ciyaaryahanka loo yaqaano Roberto Lewandowski. waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu caansan kubadda cagta, kuwaas oo ciyaari doona koob adduunkoodii ugu dambeeyay, kaasi oo dhawaan ka qabsoomi doona waddanka Qatar. 34 sano jirkan ayaa ku jira qaab ciyaareed qurux badan, inkasta oo uusan ku jirin kuwa ugu cadcad hanashada World Cup-ka, wuxuuna xulkiisa u dhaliyay in ka badan 76 gool 134 kulan oo uu saftay. kaalinta saddexaad waxaa soo galaya ciyaaryahanka loo yaqaano Thomas Muller. waa mid ka mid ah kuwa ugu hibada iyo farsamada badan kubadda cagta. 33 sano jirkan ayaa horey ugu guuleystay koobka adduunka, waxaana la filayaa inuu kasoo muuqan doono World Cup-kiisii ugu dambeeyay. kaalinta labaad waxaa soo galaya ciyaaryahanka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo.
ninka lagu naanaysto Mr. Unstoppable ayaa ku sii shaqeeyay da'da 40-ka, waxaana kasoo muuqan doonaa World Cup-kiisii ugu dambeeyay, kaasi oo dhowaan ka bilaaban doona Qatar, iyadoo ay tahay fursadiisii ugu dambeysay ee uu ku hanan karo koobka adduunka. Ronaldo ayaa jirsaday da'da 37, waxaana xaqiiq ah inuu yahay World Cup-kiisii ugu dambeeyay kaasi ee uu ku matalo xulka Portugal. Kaalinta koowaad waxaa soo galaya ciyaaryahanka reer Argentina ee Leo Messi. Leo ayaa doonaya inuu meesha ka saaro xusuustii finalkii 2014, waxayna noqon doontaa fursadiisii ugu dambeeyay ee uu Messi ku hanan karo koobka adduunka. Ninkan 7 jeer ku guuleystay Ballon d'Or-ka ayaa kasoo muuqan doona Qatar koob adduunkiisii ugu dambeeyay waayihiisa ciyaareed, maadaama ay da'diisu kor u dhaaftay 35 sano.